kulankan ay isugu yimaadeen golaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa qayb ka ahaa kulamada caadiga ah ee goluhu ay yeeshaan waxaana kulankani maanta looga hadlayay isla markaana lagu dhageysanayay warbixino ay soo diyaariyeen gudiyada baarlamaanka Hirshabelle oo ay ka soo diyaariyeen deegaanada maamulka Hirshabelle ilaa iyo 4 gudi ayaana warbixinada ay soo diyaariyeen lagu dhageystay madasha kulanka uu ka dhacayay isla markaana waxa ay diiradda ay ku saarayeen goobaha ay warbixinadu ay ka soo diyaariyeen gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa mid u siinayay khudbadaha gudiga warbixinada soo diyaariyay gudiga dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada waxa wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka kumeelgaarka ah ee Hirshabelle lambar 2 waxa wax ka bedel lagu sameeyay qodobka 31 ee xilwaayinta xildhibaanada farqadiisa afraad waxa ku qornay inuu xildhibaan uu xil ku waayi karo haddii uu qabto wasiir ku-xigeen ama wasiir dawlo waxaana lagu bedelay in uusan qaban karin xil aan ahayn wasiir ku-xigeen wasiir dawlo lambar 2 waxaa wax ka bedel lagu sameeyay qodobka 45 oo ahaa xilka madaxweyne ku-xigeenka farqadiisa koobaad waxaa awal qornaa kaaliyaha madaxweynaha waxaana laga dhigay waa madaxweyne ku-xigeen guddiga waajibaadkiisa ma gudan karo haddii aan la helin hay-adihii uu la shaqayn lahaa tala soo jeedin ilaalinta sarreynta sharciga laga soo bilaabo madaxda golaha ilaalinta shacabka warshadkii dharka falcan boqolkiiba 70 inuu weybad qabtaa deegaankeeda iyo bulshadeedaba warshadda dhibaatada haysata balcad hadda waxaa ka mid ah dadkiisana uu soo dhumay mashiinadeedina waxaa muddaaya roob mashiinkii ugu weynaayay ee warshadda waxay 12 kustana waa la qaatay mana garanayna wax qaatay waxaan soo jeedinaynaa in uu baarlamaanka guddi u diro waxay intaas ka soo qiimeeyo sida aad ka qabtaan laga soo bilaabo bishii Janaayo ilaa iyo Maars ee sanadkii 2017 xilliga jiilaalku wuxuu ahaa mid aad u qalalan ama tarayd kala kuleel badan sidii xilliga jiilaalka lagu yaqaanay daaqa iyo biyaha waxay noqdeen kuwa qadadan bishii Abriil ee sanadkii 2017 dad badan ayaa xoolahooda ku waayay abaarta sidoo kale waxaa jiray dad barakacayaal ah oo ka soo barakacay deegaanada miyiga ee Hirshabelle oo soo barakacay sida Jowhar iyo Beledweyne kuwaas oo la dejiyay xeelado qaxooti ee ku yaala degmooyinkaas kadib markii ay dhamaadeen dhageysiga warbixinada ay soo diyaariyeen gudiga ayaa gudoomiyaha baarlamaanku waxa uu shaaciyay in qaybta dhiman la dhageysan doono maalinta bariya Cabdifataax Ahmed Macallow Cabdifataax Zaki Bulsha TV Jawhar